waxaa lagu wadaa in wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ay hortagaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mid ka mid ah fadhiyadiisa wasiirada loo yeeray ayaa waxaa ka mid ah wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaali iyo wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar labada wasiir ayaa su'aalo ka aadan sababaha loo xiriiray xildhibaan Daleys Xasan Aadan iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya xayiraadii la saaray kol hore dulmadyada aad iyo magaalada Kismaayo weydiinaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa hore u dalbaday in wasiiradan hor yimaadaan golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu wasiirada amniga iyo gaadiidka ka dalbaday inay yimaadaan kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maalinta Axadda ay soo aadan si su'aal loo weydiiyo qodobka 23aad faqradda 2 xarafka da wuxuu nafarayaa maalinta Axadda xukuumadda iyo wasiiradeeda in la xisaabtamo su'aal la weydiiyo dhowr jeer halkaa waxaan ka soo jeedinay gudiyada in looga fadhiyo inay wasiirada halkaan keenaan su'aal la weydiiyo oo ku saabsan shaqada ay u hayaan mujtamaca Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed xildhibaanada waxaan u sheegaynaa maalinta Axadda soo socota halkaa waxaa loogu yeeray wasiirka amniga iyo wasiirka duulista hawada xildhibaanadan waxaan rabnaa inay halkaan maalinta Axadda ku soo xaadiraan dhowr jeer hore ayaa kulamo ay ku hor imaan lahaayeen fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaali taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jenaraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi u baaqday lamana ogaa sababta ka dambaysa arrintaasi inkastoo kulanka Axadda aanan loo yeerin taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed